halkaan naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed ku soo dhawaada meel kasto adduunka aad ku nooshiin maanta waxaan qaada dhigi rabnaa ma arkino waxyaabo aad dhibaato dalkeena 30 sano ugu jirto dawladnimada Soomaaliyeed intaas oo waxay soo martay darajooyin wax meel laga gaari waayo waa qabiil waxa meel laga gaari waayo waa kariis cuna waxa waaye tuug waa oday duq ah maskaxdiisa biyo ka buuxaan maxaa la gudboon shacabka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya waxaan ognahay maamul goboleedyada si walba ay u xalli karto intii wax garato iyo dadka mutadawiciinta ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo wax garadka ah intuu wax fahmaysa dawladda garbaha ay qabatay way la shaqeynayaan juhdi walba ay geliyeen maamul goboleedyada si walba dawladda ay yeeshay xal ma rabaan dad 30 sano xal haday keenayaan oo qabiil xal noo keenay 30 sano xal noo keenila dhibaatada oo dalkeena facay naga reeb intaas waa siyaasadda lagu nabaday haayo Soomaaliya yaa iskale systemkaas dawladda iskale haddana dalkii federaal waaye dawladda hadii aad adiga madax banaan tahay waxaan ognahay gobolada kamida dawladda waxay tiri aan wax idin la dhisno aan idin la qaabin waxa la yiri kuma baahnin waana faragelinaysa dawladda maxay sameeyay maanta haddana waxa ma leedahay inta ka soo baxda ma leedahay dawladda ayaa farageliyaysa dumiyaysa lacag noo dhiibaysa maamul gobol hebel soo dumina leedahay taas waxaan u aragnaa inuu qabiil qayaxan yahay dawladda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u dirayaa baaq 30 sano haduu oday xal noo keenay xal noo keenila odayaasha maanta inay dawlad Soomaaliyeed ka taqallusaan oo shirarka jaraa'id qabanayaan waxaan idin leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed dawladda waxaa dhista dadka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed public local ku naqata odayaasha aad arkaysaan qodoy ka dhiseen maanta hadaa qabiil u hiilinayso dawladda Soomaaliyeed aan u hiilihayn waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed annakayna anfacaysa dawladnimada bixi kamaan iyo ciyaalkeen odayaasha maskaxdooda biyaha ka buuxaan oo tilaab laga dhaqaaji karin oo wadanka laga dhisi karin waxaan leeyahay digniin inaad ka hortagdaan oo aadan u ogolaanin odayaasha dhibaato badan oo qabiil ahoo ciifa aanan wax ay ku salaysan tahay aanan la aqooninay wadaan waxaad ogtihiin nin dhan oo mas'uul ah intuu meel soo istaago leeyahay dawlad ma jirto hogaamiye kooxeed cad waayd waxa jiraan moog ma ahan maamul goboleed ama qof mas'uul ah oo intaas oo balaayiin ummada hogaamiyahay in uu aytamo waa mamnuuc hadii uu aytamana garaadkiis intuu la egyahay uu ku ayto marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay dawladnimada soo socoto waxay anfacaysaa dhalinyarada waxay anfacaysaa dadka waaweyn oo in dhalinyaradii ay meel ay ka shaqaysato ay ma arkin oo mushaar ka siiyaan ay ka biilaan meeshii laga heli lahaa hortaag adooga maskaxdiisa biyaysan ayaa naga hortaaganay dhalinyarada Soomaaliyeed ma badahay ku dhamaahaysa maxabada dhameeyayso igaarkaada intuu ka biilaa waata dawladda Soomaaliyeed aad burburiyaysa halkees u socotaa meesha aad u socoto odayaha madaxiisa biyaha ka buuxo garan maaya meesha aad u socoto haddii ay dawlad Soomaaliyeed ay ku anfici weyso meesha aad u socoto garan maaya
nin mas-uul ahoo maanta ku hadlayo xamar ee nabad naqamaysa ku hadlayo dadkii Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo burburiya maamul goboleedyadan aad u joodin hubki iyo dhaqaalihii iyo lacagtii iyo wixii aad aragtay oo aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed intaasoo juhdi ku bixi ayay ku weerareen maamul goboleed kale ummad Soomaaliyeed ay ku dhaqan tahay ayaa lagu weerarayaa taas wax la qaadan kara ma markaasuu ku leeyahay maalin ilaahay keena ayay waxay leeyihiin dowladda ayaana faragelinayso walla dhalinyarada Soomaaliyeed baaqa aan u dirayaa oo yahay faragelin dowladda kuma wado wax ay faragelinaysa mala waxay ku leeyihiin shabaab ayaana haasto ay ku andacoohayaan dowladana wax ka qaban mayso war dowladeeda ilaahay ayaa wax garad naga dhigo dowladeeda tabarteedan ognahay cududeeda intay la egtahan ognahay waa dowlad shala maantaan la soo dhisay oo rabto in inta garbaha laga istaago meel la gaarsiiyo oo dowlad dhaqaale la iyo xoog leh la dhaliili karo waxay haysata lagu dhaliili karo la keeno ayay u baahanta haddii inta yareed in la jijibiyo la rabo oday inuu naga jijibiyo la rabo dhalinyarada Soomaaliyeed waa digniin ka hortag lama qaada karo nooma cuntinto aabbaha iyo waalidka meesha ka biili lahayd hadduu maanta qabiil u hoylaha waxaan ognahay dowladda Cabdiqaasim Salaad Xasan waxaa laga dhaqaaji waayay qabiil unuko xamar dhex taagan oo arkayna ayay leeyihiin madaxtooyada gelimaysid waxaan aragnaa dowladda Cabdullaahi Yuusuf waxay soo degto koonaha way xoodis maalintii ugu dambaysa waxay dhaheen dowladda dalkood dhanaan ka saaraynahay dhaheen baaqaas wuxuu ku socdaa odayaasha maskaxdooda biyeysa dowladda waxay dhahday dhowr maray waxay dhahday war aan wax idin la dhiso kuma rabno war dowladdan publica locaalan ku dooran dadka Soomaaliyeed doortay wax humbuhumbay ku yimideen ma aha wax kaligiis talis ku yimid ma aha shacabka Soomaaliyeed doortay haddii ay shacabka Soomaaliyeed dowladdi la doortay ay faragelinayaan dad iyo dal lahamayn dhalinyarada Soomaaliyeed dad iyo dal xura oo adduunka la ficiltamo oo iska dhiciyo sharaf iyo karaamad iyo ciizad la naqamayno hadday odayaasha in hortaagan yihiin oo maskaxdooda biyeysa iyo siyaasi daniista ah oo isbitaal ku dhisaynin oo ciidan dowladeed ku dhisaynin oo iskool ku dhisaynin oo hal wada ku dhisaynin oo waxba ku qabanaynin 30 sano ayuu hortaagnay aqbali ma karno maanta inay dib u soo laabtaan ay ku dhahayaan amniga ay faragelinayaan waa iga baaq intii wax garada oo oday oo odayaasha ma wada xumee oo dowladda garab taagan oo la shaqeynayaan hana la shaqeeyano meel aan waxaan rabnaa waalidkayna ka kaargarayno ilmahaynana aan biri ka maalin ay naga dhaxlaan haddii ay waxay shalay ay sameeyeen dhaxlow mahayna ku meel fiican amba dowlad fiican dhaxlow mahay maantay inaan wax dhisana ayaa odayaashaas aan ka dhaxloweyna halkay u socdaan waxaad ogaataan ogaada dowladda Soomaaliyeed waxaan u dirayaa baaq waxaan hortaagnay 30 sano dhibaato ah qabiil daniista ayaa hortaagnay dhalinyarada mutadawiciinta oo leel iyo nahaar dowladda garab taagan haddii aad ma arkin oo aad shaqadooda maanta la hor istaaga maxaa imaanayso waxay ku soo noqon doonaan dhalinyaradaas waxay ku soo noqon doonaan xanaaqeen waxay ku soo noqon doonaan dowladda waxaana keenaya dowladda haddii ay ka naqato bareemka dalku u yaalo inay hore u socoto inay ka dhabayso dowladnimada
inay salsalax aynan gelin dowladda waxaad arkaysaa maskiinnimada ay sameeyayso yaa ilaahay yaqaan maalin ilaahay keena waxay ku baaqaysaa nabad waxay leedahay nabad aan qaadanno intaas in ka badan maxay sameeyaysaa dowladda waa inay shaqayso inti karaankeeda aynan cidna ay aga gaman salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu